ogaaskii gudaha habar jeclaa waxaan leeyahay idinku waxa ka hadlaysaan isaaqow dagaalka ka socda jiida hore xaqdarrada ah ee dadka dhulkiisii iyo amuuddiisii joogay lagu qaaday waa xaqdarro kaasaa ka hadlaysana isaaq gudihiisa maalin dhow ay ka dhacaysa haddaan doorasho la qaban waxaan leeyahay dadkan odayga u ahay ee habar jeclo war anigu nabad baan doonayay inaydaan dhiman inaadan maxaabiis noqon inaan hubkiina la qabsan inaan dhibaatayna gaadhin idinkuna aydan gacan ku dhigla noqon oo aakhira naarta gelin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore baaq baan dirayaa baaq nabadeed beelaha isku laayay labada ciidamada waxa weeye maamulka ACC iyo maamulka Somaliland iyo labada beelood waxa weeye dhul bahante iyo habar jeclo isku laayay area-da boqorkeen meegaagle waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo war nabad baan ku baaqayaa nabad hore wixii u dhintana u dhinte maantana ninka geerida gurigiisa ay taalla og geeridu dhibaatada ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay iyo ninka maxbuuska ee la hayo waxaan leeyahay maanta tolkayow nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tolka haddii laga gardaran yahayna u hiili haddii uu gar leeyahayna u hiili haddii laga gardaran yahay u hiili haddii waxa weeye uu gardaran yahayna u hiiliyo gardarrada ka qabo maanta dhul bahante dhul habar jeclaa leedahay ama isaaqa uu leeyahay uu degan yahay oo haystaa ma jiro dhul bahante dhulkiisii buu joogaa ilaahay ku abuuray haddaa leedihiin waa maamulka Somaliland innagu waxaanu ka tirsaneen dowladdii Soomaaliya waxay u dirtay dibadda ninka la yiraahdo Wasiir Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi ruush baa loo diray waa loo soo tababaray tababarkii halkii dalkooda iyo dadkooda ay anfici lahaayeen ee maamulkii dowladdii bariga jirtay Maxamed Siyaad Barre ee wuxuu qaban lahaa inay ciidamada dhisi lahaayeen duurkay galeen oo dowladdii soo tababartay waxa weeye dhaqaalaha gelisay ayay ku dumiyeen aqoontii la soo baray waxaa tidhi adigoo daarooday xukumi maysid waan ku diiday xukumi maysid waad la dagaalantay amuuddaadii baad joogtay waad ka adkaatay maanta tiyo kalea jooga ninkaad shalay tidhi xukumi maysid inaad maanta taa waa ku xukumayaa anigu cadaalad darraan u arkaa ka ugaas ahaan anoo ugaaskii gudaha habar jeclaa waxaan leeyahay walaalayaal caqligu ha shaqeeyo maanta dhul bahante wixii dhintana dhinte habar jeclo wixii dhimatana dhinte waxa weeye allah ha u naxariisto labada dhinacba dadka dhintay labadaba waan ka xumahay labaduba waa tolkay iyo waxa weeye bahayeeyaday iyo dad muslina oo labaduba waxa weeye dad Soomaaliyeed oo dhimanaya waxaan ugu baaqayaa dagaalka in la joojo dagaalka waxa ka taliyay Muuse Biixi Cabdi waa amarka bixiyay dagaal in la qaado 25 bisha ilaa 22 inta u dhaxaysa in dagaal la qaado xoogana 5 meelood ama 4 meelood laga qaado amarka Muuse Biixi baa bixiyay Salebaan Yahuudina gudoomiyaha golaha guurtidana waa kii dalku dagaal buu ku jiraa doorasho wax la yiraahdo ma jiraan waxaan u sheegayaa idinku waxa ka hadlaysaan isaaqow dagaalka ka socda jiida hore xaqdarrada ah ee dadka dhulkiisii iyo amuuddiisii joogay lagu qaaday waa xaqdarro kaasaa ka hadlaysana isaaq gudihiisa maalin dhow ay ka dhacaysa haddaan doorasho la qaban oo aan xeerarkii la ansixin doorashada xilligeedii laga qaban isaaq gudihiisa la iscunaya maalin dhow ilaahay kama dhigo waxaan ugu baaqayaa dhul bahante daarood waxa weeye nabadgeliyo nabad ku baaqde iminkana weli nabadii ku baaqa habar jeclo waxaan leeyahay walaalayaal wiil baa ku dhashay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho qasaaruhu maanta ninka jiida hore jooga wuu ogyahay wixii dhacay waxaan leeyahay dagaalka hala joojo qolo walba ciidankeeda dib ha uga soo qaado meeshay joogto qolo wadaba dhulka intay leedahay ha ka degto habar jeclo waxaan leeyahay dhulka intayda lahayn iskaga soo baxa dhulkiina ku ekaanaada dhulkaa dhulbahantaa leh ilaahay ku beeray
laba maamul baa jiro maamulka Soomaaliland iyo maamulka Khaatimo State waxa weeye maamulka Khaatimo State baa dowladda Soomaaliya aqoonsanta waxa la walaalahay dadkan odayga oo ahay habar jeclo waranigu nabad baan doonayay inaan dhiman inaan maxaabiis noqon inaan hubkiina la qabsan inaan dhibaatayna gaadhin idinkuna aydan gacan ku dhigla noqon aakhira naarta girin ilaahay quraankiisu wuxuu ku sheegay qofka duulaanka soo qaada inuu naarta gelayo uu dhimanayo dhulkiisa qofka ku dagaalama ee cabuudiisa ku dagaalama ee cindigiisa ku dagaalamana uu jannada gelayo marka waxaan leeyahay dhulbaahanta dhulkiisii iyo cabuudiisii ayuu joogaa dhulinigama joogo waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka waxgaradka salaadiinta waxgaradka aqoonyahanka dagaalka la joojo miiska wada hadalka la isku yimaado labada maamulada wada hadleen beeluuna ha wada hadleen dagaalka in badan baanu qaylineynay in badan baanu hadleynay in badan baanu war dagaalka beelaysan maxamed kaahin iyo muuse bixi waxay ku dadaalayeen Saleebaan Gaal si dagaal beelaysan loo rido oo intii dagaalku ku socday gooja cadow ka socday imikaba waxay dadaal ugu jiraan sidii dagaal reeraysan oo isaaq iyo daarooda loo rido 20 sanadood uu socdo oo la isku hoogo oo la isku baabao oo la isku dhinto oo marka la isku baabao aakhirka la heshiiyo waa ogtan TPF iyo Ethiopia waxa kala qabsatay 10 milyan baa ku kala dhintay waxa weeye maantana waa nabad dowladda Ethiopia ka mid yihiin waxa weeye maanta dadkaas ugu tashada ama daarood ha noqdeen ama dhulbaahanta ha noqdeen amuudooda ha looga soo baxo dhulkooda ha loo ammaan geliyo aqligu ha shaqeeyo waxaan leeyahay boqor Ismaan Buurmadow hadalkii oo aad badisay maalintii wada hadashay sida weerkaad marba dhinac hadalka aad kaga timi maantana nabad ku baaq waan ku leeyahay maantana nabad ku baaq cid ku baaqdo baaqaagii cid maqli weeday oo waxa weeye dadka nabadda jecel baaqoodii cid maqli weeday oo dadka xumaanta jecel baa la culooba dadka nabadda jecel annagu nabad baanu jecel lahay nabad baanu ku baaqaynaa midnimo baanu ku baaqaynaa wada jir baanu ku baaqaynaa dagaalka Muuse bixiye inay ka hindabada ka riixayaan ee habar jecel ay doonayaan xaasida xaafada inay diishidaan hayeelina wixii dhintay waxa ka samri weedeen boqorkeen baa la gubay wadikii ilaa waxaanu gubnay yeelaanu gubnay waa kala joogtaan ciidamada la soo kala qaado waxa weeye maskaxdu ha shaqeyso aqligu ha shaqeeyo wixii dhintay labada dhinacba waanu aad iyo aad baan uga xumahay waxa weeye wadad Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryayaa in dagaalka ilaahay joojiyo dadka beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya igidna waxaan leeyahay dagaalka Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo Saleebaan Gaal baa dabada ka wada waxay doonayaan dhul aanay lahayn waxay doonayaan amuud aanay lahayn waxay doonayaan dad shacab inay xasuuqaan waxay doonayaan inay meesha dhibaato iyo dib ka geystaan waxaan ku soo gabagabeenayaa war nabad baan ku baaqayaa nabad ha la qaato labada dhinacba nabad baan ugu baaqayaa walaalnimo aan ugu baaqayaa aqligu ha shaqeeyo nabadgelyada ha la ilaaliyo